بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا waxaan ognahay in adduunka xanuun cusub oon dawadiisa lahaynin uu qaaq kaga siiyey isagoo ka bilaabmay shiinaha haddana fara kulul ku haya yurubta soona galay qaaradda afrika laguna sheegay waddamada jaarkeenna iyo dalkeennaba waan ognahay xanuunkaasi inuu keenay dhimasho badan inuu keenay laakiin waxaan ognahay in dad badan uu ku dhacay la sheegayo in boqolkiiba 98 ay ka bogsadaan laakiin dhimashadiisuna ay badan tahay markaas innaku waxaan isxasuusinaynaa aayadihii qur'aanka ilaahay qur'aankiisa uu noogu sheegay ayaan isxasuusinaynaa wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi laa tadri nafsun maada taksibu gada walaa tadri biayi ardin tamuut nafna ma garanayso berri waxay kasbanayso meesha ay ku dhimanaysana ma garanayso aayaddii kale waa tii ahayd kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf kastiba mowdka way dhadhaminaysaayo way dhimanaysaa haddaad 20 jir ku dhimatid haddaad 50 ku dhimatid iyo haddaad 100 gaadhid ama aad dhaaftidba kullayba qof dhimanaya baa tahayoo dadkeenna innaka wadku nagama cabsiinayo inaan wadka ka baqanna maaha saacaddu ilaahay qof walba u qoray ayuu dhimanayaa adduunkana adduun lagu waaraya maaha ta kale waxaan isxasuusinaynaa aayaddii qur'aanka ee ahayd qul inna almawta aladii tafiruuna minhu fa innahu mulaaqiikum walow kuntum fii buruujin mushayada wadka aad ka cararaysaan waa nila kulmi doonaa qof kastiba wakhti buu la kulmi doonaa wadka markaas lagama carari karo wad lagamana baxsan karo ilaahay nin kastaba cid kastaba waxa uu u qoray iyo saacaddiisa ayuu qaadayaa taasi kama dhigna inaan dhayalsanno xanuunkaas taasi kama dhigna inaan iska ilaalin weyno xanuunkaas intii aan karayno waan iska ilaalinaynaa wixii xanuunkaasi lagu kala qaadayay ama faafinayay ama u fududaynayay inuu isku gudbo wixii aan ka qaban karayno ayaan ka qabanaynaa waan is ilaalinaynaa intaan is ilaalin karno oo ilaahay waa kii yidhi nafihiinna halaag a ku ridina oo ay ishalaagina marka waxaan dhegaysanaynaa dhakhaatiirteennaan dhegaysanaynaa kaalkaaliyayaashoodaan dhegaysanaynaa dadka ku takhasusay cilmiga dhakhtarrada iyo dawada iyo xanuunada ayaan dhegaysanaynaayoo waxyaabaha ay nagula talinayaan ay noo sheegayaan ayaan dhegaysanaynaa waanan ducaysanaynaayo xagga ilaahay baan u ordaynaayo waan ducaysanaynaa kollay hadda waxaa la joogaa in la badbaadiyo qaran in la badbaadiyo ummad in la badbaadiyo dad u nugul dhimashada oo xanuunkaasi uu haleeli karo markaas waxaan taageero u muujinaynaa dadka ku howlan ee dhakhtarrada ka shaqeeya iyo dowladda inkastoona looga baran inaan dowladda aan taageerno laakiin waxaan halkan ka caddaynaynaa maadaama ay arrintaasi fara kulul ku hayso adduunka waddamadii waaweynaaba ay waxba ka qaban kari laayihiin kuweennuna kollay way ku culus tahay way ku adag tahay laakiin waxaan halkan ka caddaynaynaa inaan taageero u muujinayno waxalla wixii ficila iyo odhaaha ee loogu gurmanayo loogu gargaarayo lagaga hortegayo arrintaas iyo xanuunkaas halista waa waajib qaran oo na saaran sidoo kale waxaan ugu yeedhaynaa taliska in arrintaas laga ilaaliyo musuqmaasuqa iyo dhayalsiga iyo waxqabasho la-aanta in laga ilaaliyo sida adduunka oo kale qaraaro la qaato runtii ummadda iyo dalka loogu adeegayo oonan laga gabanin sidoo kale waxaan halkan ka caddaynaynaa inaan annaku raad ahaan aan joojinay isku soo baxyadii iyo waxyaabihii ay isku imanayeen dadku aan ka shaqaynaynay iyadoo oo aan tix raacayno ilaalinta iyo dhowrista bulshadeenna
sidoo kale ciidamada qaranka oo dhan waxaan ugu yeedhaynaa haddii ay tahay booliiska, haddii ay tahay gendaranka, haddii ay tahay militeerka, haddii ay tahay gaarda republikaanka, haddii ay tahay ciidamada cirka, badda, dhulka, haddii ay tahay bombiyega, haddii ay tahay gaardakoodka, in heegan la ahaado, la isdiyaariyo sidii loogu gurman lahaa haddii uu xanuunkaasi uu nagu sii faafo, dadkana loogu adeegi lahaa, intii la karayana loo badbaadin lahaa. sidoo kale waxaan ugu yeedhaynaa bulshada rayidka inay iyakuna heegan ay noqdaan si arrintaasi looga qayb galo, hadduu ilaahay yidhaahdo ay sii cidhiidhi lasii dareemo iyo dhibaatadaasi ay sii korodho. ugu dambayn waxaan ugu yeedhaynaa bulshada reer Djibouti inay isticmaalaan, ay ogaadaan waxyaabaha lagu kala qaadaya xanuunkaasi, iskana ilaaliyaan, isdiyaariyaan, foojignaadaan, wax alla wixii fududaynaya xanuunkaasi inay iska ilaaliyaan insha allahu tacaala.